صح dadku waxay leeyihiin manaal ilma ku tira badan caawar mid soo galay ani ina hooyashan dhala waa sheegay Soomaa shan dal waad arkaysan ya manaal shan caruur u joogto gabadha walaashiina ay idris su'aasha ugu horeysa su'aalaheena anaga saas ugu maxal day adko su'aasha ugu horeysa ku weydiinayna brother waxa waaye ya hal isku xishooda su'aasha ugu horeysa waxa weeye ciyaal ma dhahay idris bebe abaayo aniga caruur ma dhahay wali okay naagu qaatani weydii ya okay marka su'aasha labaad waxaan uga dhigayaa hal mar hees qalanta ya kuweys ya hees qalanta day madaxishoodka markaad loontan dadabta korbalaygu didaya oo layga daraya inda deeraale dumar u manal waan ku heesay adiga dad baa hadlaysaa ilmaha horta naga bixi ilmaha teeda kale ilmaha kuma ogeeni ilmaha shanta aad bisad baa tahay habeenkii baa dhashaa ilmaha aniga ha waxaa isma weydiiyey ilma shana ii joogay dhegeyso hees baan ku wadaaye albaabkan xir adiga dadkaas ku dhib هذا السوق هذا همر على قد ما هذا السوق مرك waxay soo xasuustay lama hadda kornaag ku guursaday manaalay waxay soo xasuustay caaw sheeka ahayd nin baa hadda kornaag ku guursaday caruur beeray naagtii ma fahanti markuu is yiraahdo xaajiyada u sheekay oo qolhoolaha iyo rabbiyasir iyo wax ku akhriba mid qeynlaya albaabka ka soo galo okay hadda waa toos ku soo fadhiistay mujeedaa hadda igu dhufo markaysteedii day madaxishoodka markaad luquntan dadabta korbalaygu didaya oo layga daraya inda deeraale dumar ugu filrooney dayaxshan iyo tobanaad yabay dadki waxay leeyihiin waa lagu heesayaa suuro war suuri baa iga dhumay waxaas suuro saxdahay inantaan live kuma suurooto anaa garanayay dumar ugu filrooney dayaxshan iyo tobanaad dahab lagu mithaaliyey dadaadii 17 guga loogu darayey inaa deeraale ilaahay dembiga iga cafiye intee 17 sano ka jirta adiga aduu habeen maalin hore 15 baa baytar maxaa labada iigu dartay hadda walaahi aduu horumarkayga ka xunta far caadi ah qabta caaw inaad ka shifta lama rabin والله واي قيانت أنا 17 بالليل أساس إسكو محل أسورنا يا ما له 17 بقى 17 كي سا ما شاء الله كو هاي هذا محل وضع يقدرت معنا أنت أقول هل سؤالك ويدينا يا كل سجال بقول يا سجاشن يكوي حاجات جوكتي أعوذ بالله ما كان مرة اشتغل مالين ما كان اشتغل مالين offside بلدوني أنا بقولي يكون هذا هذا مركز اللي ما له لكن ما له شو ما قا سؤال أصحابها سؤال سودا وكوه السيارة قدر يتهي استرادي يا سؤال سودا حساب احتار ما كده هنا اوكي سؤال شكله لو سوي دي ما تقانا waxay u dhacaysay hadii lagu dhigi lahaa qof social media ku jiro guurso gabar ayaa guursanayd qof hadii ani xasban la laakiin markaa ma ogina sababtaada way ogyihiin macnaha laba ka dhigo danin raga ilaa ka dhigo afar baa lagu baniyay manal baan guursan lahaa u kadis ma runta rabbi ku jeel zalama u kadis barabar ha okay waa maqashan soo maaha sodon baa jirtana wallahi baan sodon u jirin okay adiga marka asxaabtaada ma jirtaa su'aalo ay rabaan inay aniga nolosheeda aniga iga ogaadaan notes okay asxaabtu waad maqashaan 920 ruux baa daawanaysa manaal oo dhankeedii ka socota su'aasha aad doonaysaan manaal waa inay noqotaa horta marka ugu horeysa su'aal yani wanaagsan qofkan ku haboon in la weydiiyo maxaad doonaysaa caaw manaal inaad weydiiso caruur muusan dhalin buu idin dhahay dadkayga maxaa idinka qalda
Okay. waxay ku leeyihiin manaal Soomaaliya goorma kugu dambeysay waa manaal le Soomaaliya gabadhii ugu horreeyay ee isjeclaataan noqotay xsan baa la sheekaysanaysaa maya dee commentiga manaal laga soo wada buuxiyay waa ku wareerayba Soomaaliya waxa igu dambeysay macnaha Soomaaliya Ethiopia Soomaaliya ma aha Soomaaliya Ethiopia Soomaaliya ma tusaalahan oo kale Puntland oo kale gobolada Puntland oo kale oo ama gobolada Somaliland oo kale adiga Soomaaliya intii la garanay even Djibouti waad ka reebaysaa ya Soomaaliyadeena caadiga ahayd صح Soomaaliya waxa igu dambeysay walaahi 2008 okay wax saas ma ahayn Soomaaliya okay waxaan weydiinaynaa manaal hadda ma la qabaa bay dhaheen xaasmiya aniga ma yaada xaasmiye okay okay manaal ma laga yaabaa qof baraha bulshada caanka ah in aad guursato qof baa wuxuu yiri qof kale ma laga yaabaa qofka kale aad guursanayid inuu ahaado yani qof caan ama qof aan bulshada garanayn oo la aqoon oo adig ku qarsanaa yani haddii aad guursanaydo ku dhaa qofka dambe aad guursanaydo wuxuu noqon doonaa qof aan la garanayn oo ku qarsan mise qof caan ama fanaan ha noqdo ama siyaasi ha noqdo wuxuu doonaa qof marka caan ma qofka guursan doona wuxuu noqonayaa qof aan ay qarsan insha Allah waad maqasheen oo maleynaya manaal waxay taagan tahay qofka dambe ee nolosheeda ku soo biiri doona waa inuu ahaado qof iyada u qarsan oo aan buraha bulshada iyo meelaha caan aan ka ahayn aniga horta nasiibkay meeshaas ku xumaaday isku dhamaatay meeshaas aan kaga baxanay qadka ma ya calafa jiro laakiin se aan calafa jiro laakiin ani manaalka ahaan qofka guursanaya qof aan ay qarsan okay magacaaga runta ah miyaa manaal bay dhahan qof ma magaciiba Sabriin magaceeda runta waa Sabriin ma sha Allah wow sadkiya laabta Sabriin ay saydahaadi goodimiyaan dhahaa yeah magaceedu waa Sabriin ya gabadha manaal magaceeda saxda ah waa Sabriin dee magaceeda saxda ma manaal is from xalada dhinaca hooyo iyo markas laakiin hooyo magaceeda hirgala moogtay dhinaca aabbahan Sabriin ay iga baxay su'aal very interesting ah oo dadka 90% asxaabtaad ay isweydiiyaan iyo dadka aan even asxaabtaad aanayna balse ku garanayaan baa meesha la soo dhigay adiga iyo Shiina maxaa idin ka dhaxeeya ay nigo la iswaashaasna madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble xataa dhowr